kadib markii toddobaadkan gudoomiyaha xisbiga Ucid injineer Faysal Cali Waraabe uu soo magacaabay laanta xisbiga Ucid ee dalka Jarmalka Mustafa Cabdiraxmaan Muumin oo hore u ahaa gudoomiyaha jaaliyadda Soomaaliland ee dalka Jarmalka waxaan wax ka weydiinay bal dareenkiisa ku aadan xilkan cusub iyo sida uu isugu wadi karo labada xil ee jaaliyadda iyo xisbiga. aad baan ugu faraxsanahay inaad caawa isoo booqatay adiga iyo midiyaha aad baan kaaga mahadcelinayaa Sakariya adigana waan ku salaamayaa iyo saaxiibkay Cabdiraxmaan aad baan idin salaamayaa marka hore waan ku faraxsanahay xilka la magacaabay gudoomiye Faysal waan mahadcelinayaa waxa la yiraahdo qofkan bilaadanka uu mahadcelin ilaahina uma mahadceliyo anoo waxba ku codsanin buu soo mataqaana magacaabay wuu ku mahadsan yahay waan ku faraxsanahay waan u mahadcelinayaa marka labaadna xilka uu soo igmaday waan aqbalay waan hawl culus markii horena hawl culus baan hayay tanna waa la igu sii daray markii isagana waan mahadcelinayaa jaaliyadda iyo dadka xisbiga u ciiday halkan joogana waxaan ilaahay ka rajeynayaa inaan wada shaqeyn doono waa community bay dhiibay community-guna de iyaga go'aan kale waqtiga ay yiraahdaan hawshaasi de kulli aanu diyaar baan u ahay iyaguna go'aan ka mataqaana ku xidhan yahay anigu waxaan ahaa uun de adeega jaaliyadda adeega dad badan oo de iska masaakiina oo aan mataqaana caawinayni baa jirtay jaaliyadahan isku xidh fara badan baa jiray waqtigan xaadirka waxaanu jirnay xitaa aan ku jirnay oo Cabdiraxmaan oday ka ahaa qoraalkii iyo constitutionkii sharcigii jaaliyadda oo de qabyo ahaa la soo dhameystiray Mustafa Muumin oo hadalkiisa sii wata waxa uu tilmaamay inuu wax ka bedel iyo dardargelin ku sameyn doono laanta xisbiga Ucid ee dalka Jarmalka hawsha halkii baan ka wadayaa inaan kor u qaado mooyaan inaan halka kaga tago laga yaabo waxaan isku dayi doonaa kow inaan mataqaana aan iskugu yeero iyaga dhamaantood marka labaad inaan wala ogaado halkii ay wax marinayeen inaan ogaado marka saddexaad inaan wixii aan qaban karo marka waxa ogaado aan halka kaanba qaadno way wax walba wuxuu leeyahay the mission marka hadda kulay wax badan oo mataqaana xisbiga kaga maqnaa wuu jiray laakiin hadda kulay waan ku urgalayaa maadaama la soo magacaabay ساسترتيدنا دوان فلين دونا إن شاء الله تعالى تقوين إيه أن فلين دونا أما ضدك أنت بدنا يسوق الدم حوي أنا هالكنا دوني أنا كيف تيميو مسؤولين طلع مقعابة أو حسبيادو وتشدد الله مقعابة ضدك أنت بدنا ما فيها سنة وحويان قف كستو أو ضم عليه سياسي يعني ما تقانا أما حل سياسة ذي أو ضم سياسة ذي لا الربع إنه مركه هراء ودن كانوا تشوجا وكان نقضوا حسبيان وكان نقضوا قف أكتفه لكن انتو العقل رسكو رصدونا ودنكي تغنونا اورانو د مشرح baanahay inkastoo de arintii imika sharci laga soo dejiyo la yiri kow waa inuu qofku halkan ma taqaana commissionkii uu bixiyaa waa inuu ma taqaana contributionkii uu xisbiga qaataa oo qaybtiisa ka qayb qaataa waa inuu activity-ga xisbiga uu qayb ka yahay isagoo qofkii halkan qof la yaqaan oo ka diiwaan gashan xisbigii ka bacdina uu wadankii tago oo sidaana ku noqdo dhanka kale Cabdiraxmaan Maxamed Maryaacase oo kamid ah guddiga jaaliyadda Soomaaliland ee dalka Jarmalka oo goobta ku sugnaa ayaanu isna wax ka weydiinay bal sida ay u arkaan in gudoomiyahoodii loo magacaabay xilkan cusub aad baan ugu faraxsanahay walaalkay Mustafa Cabdiraxmaan Muumin xilka loo magacaabay waxaan kamid ahaa dadkii ugu horeeyay runtii ku hambaliyay inkastoo oo aanu anagu jeclayn ba xilkii hore noo hayay inuu sidiisii noogu hayay inuu arkaynay qofka kaliya isku hayn kara maanta jaaliyadda Soomaaliland haddana de waxa timid xilkan cusub Mustafana wuu aqbalay anaguna waanu ku faraxsanahay waxaan leenahay waanu kugu hambalyeynaa Allah kugu garab qabto xisbiyaduna wax jaaliyadda marka la eego saddex xisbiba waa hanti qaran weey jaaliyadda dadka ku midaysan community-ga Soomaaliland halkan Jarmalkuna dabcan saddex xisbi xitaa way ku kala jiraan Mustafa wuxuu kaga duwan yahay inuu wuxuu ahaa gudoomiyihii jaaliyadda maanta wuxuu noqday gudoomiyihii xisbiga mucaaradka ee Ucid Sakariya Sheekh Maxamed Zab TV wararka dalka Jarmalka